shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay hogaamiyaasha bulshada rayidka ah aqoon-yahano ganacsato iyo dhalinyaro. Ujeedkiisuna waxa uu ahaa in la tuujiyo maskaxda qaybaha kala duwan ee bulshada ayna ka doodaan tilaabooyinka muhiimka ah ee la gudboon madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si loo dhowro rajada bulshada Soomaaliyeed ay u hayaan dawladda cusub. qaar ka mid ah dadkii kulanka ka soo qayb galay ayaa waxa ay halkaasi ka jeediyeen khudbado. qaybta koowaad waxaan niri ammaanka iyo dib u heshiisiinta. bal maxaynu caqabadaha inaga hortaagan ammaanka ah maxay yihiin iyo dib u heshiisiinta. sidoo kale maxaynu tala bixin maaragtay ka geysan karnaa maxaynu ku geysan karnaa haddii noqoto ammaanka. sidoo kale cadaaladda iyo sharciga maxaa caqabada ah oo iyagana naga hortaagan maxaa tala bixin ah oo aynu ka geysan karnaa. sidoo kale horumarinta dhaqaalaha ama kobcinta dhaqaalaha. sidoo kale maxaa caqabada ah oo dhaqaalaha inaga haysta. sidoo kale dhalinyaro munaasabada goobjoog u ahayd ayaa waxa ay soo jeediyeen suugaan iyo gabayo ay ku cabirayaan dareenkooda isla markaana ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xaqiiqadu wax badan bay dadneed oo xarra u baxay wax badan baan ximaayad ugu jiray xoogag dariska caawaan xorriyadii arkaa loo xanuunsaday caawaan xaraga socon karaa xoogsay qarankii xildhibaanku caaway garteen xaaladaan nahay. shirka ayaa waxaa laga soo saaray 5 qodob oo lafdhabar u ah dib u kabashada Soomaaliya waxaana ay kala ahaayeen ammaanka iyo dib u heshiisiinta, qabiyatirka dastuurka iyo wada shaqaynta hay'adaha dawladda, cadaaladda iyo sareynta sharciga, horumarinta iyo dhaqaalaha, adeegga dadweynaha iyo dhalinyarada. waxaana koox looga dooday qodobadaasi. ugu dambeyntii ayaa waxaa halkaasi laga aqriyay warmurtiyeedkii shirka ka soo baxay. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirku wuxuu u mahadcelinayaa labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida dareen kale ay uga jawaabeen rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. shirku wuxuu ugu talinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare ku sifoobay daacadnimo iyo karti xeel dheer. kadib dood kooxeed cilmiyeysan oo dhacay intuu shirku socday. shirku wuxuu ku tala bixinayaa arrimaha soo socda: ammaanka iyo dib u heshiisiinta. shirku wuxuu garowsaday in ammaanka dalka aan lagu sugi karin ciidan ajnabi ah oo qura. sidoo kale mushkiladaha Soomaaliyeed ay u baahan yihiin xal Soomaaliyeed. sidaa awgeed waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee soo socota kula talinaynaa in juhdi badan la geliyo heshiisyo nabadeed oo lala galo kooxaha hubeysan ee ka soo horjeeda dawladda. shirku wuxuu u mahadceliyay dawladaha soo diray ciidamada AMISOM wuxuu fahamsan yahay in ay laga maarmaan tahay in la dejiyo sanadkan gudihiisa istiraatiijiyadii bixidda ciidamada AMISOM taas oo ay kow ka tahay dhisidda iyo tayeynta ciidan qaran oo Soomaaliya leedahay oo isku dhafan lehna astaan qaran. shirku wuxuu kula talinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ahaa barnaamijka badbaadada markhaatiga si ay bulshada Soomaaliyeed ugu dhiirato ka hortagga dambiyada iyo la shaqaynta laamaha ammaanka ee dawladda. shirku wuxuu kula talinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu magacaabo guddi ka kooban labada aqal ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo xalliyo colaadaha iyo isfahan waaga ka jira gobolada Mudug, Galguduud, Hiiraan, Shabeellaha Hoose iyo degmada Buuhoodle hadda la joogo. shirku wuxuu soo jeedinayaa in la sameeyo guddi qaran oo madax bannaan oo ka shaqeeya nabadda iyo dib u heshiisiinta lana asteeyo maalin midnimo oo ah maalinta nabadda Soomaaliya. in la taageero dawlad goboleedyada jira si ay u hantaan ammaanka gobolada ay ka taliyaan. tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa magaalada Garowe iyo magaalooyinka guud ahaan Soomaaliya ka dhacayay munaasabado lagu soo dhaweynayay madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisa. Maxamuud Cabdinaasir Maxamed, Jubaland TV, Garowe.